بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دوادا casharadii koobnaa oo hadlaynay maamulka iyo maareynta. Maanta waxaan ka hadli doonaa muhiimadda ay leedahay maamulka iyo maareynta. Ka hadli doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. Muhiimadda maamulka iyo maareynta ay leedahay waxa laga fahmi karaa dhammaan shay'aasha ama shirkadaha adduunka ka shaqeeya. waxa waaye maamul ay u baahan yihiin guriga xataa maamul ay u baahan yahay hawlaha guriga ka dhex qabanaysa maamul ay u baahan tahay shirkadaha maamul ay u baahan yihiin dawladda maamul ay u baahan tahay ciidanka maamul ay u baahan yahay isbitaalada maamul ay u baahan yahay hoteelada maamul ay u baahan yahay shaneemooyinka iyo tiyaatarada meelaha dadka lagu madadaaliyo maamul ay u baahan yahay saxaafadu maamul ay u baahan tahay iyo dhammaan wax kasta oo faa'iido doon ah waxay u baahan yihiin maamul iyo wax kasta oo faa'iido doon ah intaba. sidaas daraadeed waxaa la dareemi karaa muhiimad aad u weyn inay tahay maamulka arrimihiisa inay muhiimad aad u weyn inay tahay ayaa la dareemi karaa. waxaa kaloo Allah subhanahu wa ta'ala maamulka iyo idaarada quraanka wax badan ayuu nagu tusaaleeyay kana sheekeeyay wax kasta oo maanta koonkan saaran waxay u baahan yihiin idaaro iyo maamul iyo cid looga dambeeyo iyo cid go'aankeeda qaadata in la helo ay u baahan yihiin. maamulkuna hadda waxa uu muhiimsan oo qabanaya waa go'aan qaadasho oo macnaha shaygii sida ugu haboon oo inuu go'aan uga qaato efficiency effectiveness inuu sameeyo ayaa la rabaa. marka waxaa kaloo jiro aad iyo aad muhiim ah waxaa jira qodobo ay aad iyo aad muhiim ah oo la hubo in maamul aan laga maarmeynin. qodobadaas waxaa kamid ah ujeedada shirkadu ay dejisato lama gaari karo haddii aan loo helin maamul lama gaari karo ujeedada shirkadu ay dejisato. shirkadu haday dejiso inay sanadkan faa'iido intaas laag ay keento sales target intaas laag ay gaarto wax qaabkaas go'aan adiga wax uun soo saarto sanadkan xisaabaadka aan saxno waa in maamul ay heshaa iyo cid looga dambeeyo. haddii la rabo in hawl la qabto maamul aan la isku xiri karo agaasin lama sameyn karo haddaan maamul jirin. shirkad ma guuleysan karto maamul aan. shirkadaha guuleysta aragteen wadanka iyo adduunka intaba waxa waaye maamul ama ha adkaada ama ha jilicsanaada laakiin waxay u baahan yihiin maamul la'aana ma guuleysan karaan. caqabad kasta oo bini'aadamka soo wajahdo lagama guuleysan karo maamul la'aan. waxaa kaloo jira haddii laba qof shaqo wada qabanayaan waa in loo helaa qof hogaamiya iyo intoo kale. saas daraadeed marka maamulku waxa waaye muhiim ayuu u yahay ganacsiga muhiim ayuu u yahay maamulku wuxuu muhiim u yahay dawladda maamulku wuxuu muhiim u yahay shirkadaha aan dawliga ahayn maamulku wuxuu muhiim u yahay hay'adaha waxaad dareemi kartaa qofka maamulka ah mas'uuliyadaas intaas la saaran waxyaalaha maamulka looga badiyay oo looga culeyskiisa uga badan yahay waxyaalaha kale ay kamid tahay. marka waa mahadsantihiin waxaan rajeynayaa insha Allah inaa bahalkii ahaa casharkan wax laga faa'iidi doono. aad iyo aad u mahadsantihiin wixii talaayo tusaalaana soo dhawaanayna.